waa suge iyo warsame socdaalkii 30 maalmood waa buug oo qoray Allah u naxariiste Xuseen Sheekh Axmed Kadare sanadihii 1980maadkii buugga waxaa soo saaray Akadeemiyadda Cilmiga iyo Fanka Soomaaliyeed waxaana idinla socodsiin doona anigoo ah Maxamed Xasan waxaana ka daawanaysaan Taleex Media. laakiin inta aanan bilaabin buugga aan yara jaleecno hordhaca buugga oo faahfaahin kooban oo ku qoray qorayga. waayaha adduunku waxay maalin kasta dadka barayaan dhaqan cusub qof kasta oo ka mid ah bulshooyinka dadweynaha adduunkuna wuxuu halgan ugu jiraa horumarinta noloshiisa waqti kasta iyo meel kasta uu joogaba xasuusreebka dhaqan maalmeed wadareed ee nolosha la xiriira ayuuna ka dhashaa hidaha sumad sooca u ah bulsho kasta taas ayaana keentay dhaqan hoosaadyada la aqoonsan yahay oo ku lamaansan halganka midaysan ee dadweynaha adduunka oo ay hogaaminayaan cilmiga iyo farsamada dhaqan hoosaad kasta wuxuu bulshadiisa u leeyahay hanaan amar la isla ogol yahay iyo xeerar lagu kala haro waxaana qaybihiisa xunxun maqooniya sare oo kicidda aqoonta iyo garaadka xubnaha bulshadaas. sababaha kor ku xusan daraaddood maalin kasta waxaa meel kasta ka dhacaya iska horimaad dhaqan oo ka imaanaya qofka oo ay nolosha baal cusub uga furayso isla dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqamo dad kale taas ayaana buuggan uga hadlaynaa sida iska horimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sukayahaba reer miyiga iyo reer magaalka iyo dhalinyarada iyo waayeelka ujeeddadu ma ahan inaan xukun ku rido fikradaha kala duwan oo ay rumaysan yihiin dadka kor ku xusan anigoo u cuskanaya aragtideeda gaar ahaaneed tahay inaan sida ay yihiin ugu run sheego dabadeedna u daayo garaadka iyo aqoonta akhristaha kaasoo naf ahaantiisa ka tirsan kooxaha dhaqamada ka dambeeya. qisadu waxay si gaar ahaaneed uga hadlaysaa una dhowraysaa anshaxa meheradda iyo dadnimada Soomaaliyeed waxayna jid u furaysaa xiriirka iskaashiga iyo isxaqdhowrka guud ahaan dadka ka dhaxeeya koox iyo kilikiliba mar kale waxay si talantaali ah fikrad uga bixinaysaa furuucda dhaqanka ummadeena martikoobka suugaanta Soomaaliyeed ayaana si dhantaala u tusaaleynaya waxa uu dadkeenu dhaqan ahaan rumaysan yahay sheekada waxaa si caqligal ah ugu dheehan suugaanta inteeda badan ay tiriyeen abwaano caan ah waxaana mushkiladda hortaala u soo daliishanaya ama ku xasuusanaya labada oday ee qisadu ku socoto waa suge iyo warsame gabayada qaar waxay u qoran yihiin hab murtikoob ah taasoo ah in mararka qaar gabay dheer laga soo qaato dhowr bayd oo midba meel yahay islamarkaana ku siinaya martikoobkii gabayga sheekada waxaa door weyn ka qaadanaya ina waa suge oo la yidhaahda muuse ahna wiil muddo dheer dibadda wax ku baranayay qabana naag talyaani ah sidoo kale waxaa door weyn ka qaadanaya sargaal xoogga dalka ah oo la yidhaahda dirir lana dhashay warsame taas waxay ahayd hordhaci oo qoray qorayga ee sheekadii waa sugaya warsame socdaalkii 30 maalmood